dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna oo ka socday deegaanka Bohol ee waqooyiga ka xiga magaalada Dhuusamareeb ayaa istaagay waxaana degan xaaladda imika wararka laga helayo deegaanka Bohol ayaa sheegaya in dagaalkii uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba ee labada dhinacba xogta ayaa sheegaysa ugu yaraan 10 qof oo dhinacyada dagaalamay ahayd inay ku dhinteen dagaalka iyadoo dhaawacuna uu gaarayo ilaa iyo 20 qof ma jiraan wax waawaan ah oo u dhaxeeya labada dhinac hase ahaatee dhinacyada ayaa iskood u ku kala tagay deegaanka waxaana suurtagal ah inay ugu wacan tahay qorraxda oo sii dhaceysay xilligaasi hoggaanka ahlu sunna ee horey looga saaray galgaduud ayaa dib ugu soo laabtay ayaga oo sheegay inay ka qayb galayaan siyaaro ka dhaceysay deegaanka xuurshe si kastaba ha ahaatee soo laabashada culimada ayaa abuurtay xaalad adag kadib markii ay deegaanka xuurshe kaga dhawaaqeen dagaal ka dhanaa ururka al-shabaab taliska booliiska galmudug ayaa dhawaan qoraal u soo saaray ku faray ciidamada la sheegay inay ku biiraan ahlu sunna kuwaas oo ka tirsanaa qaybo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay ka waantoobaan arrintaasi inay ku laabtaan galmudug waxaa la soo gabagabeeyay doorashadii kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyiga ee Somaliland kadib markii 5 ka mid ah khamiista maanta ay la qabtay doorashadooda سعيد عبدي حسن عوكة ayaa noqday senatarka toddobaad ee la doortay kadib markii uu u tanaasulay jaamac Cabdullaahi oo la tartamayay senator Muna Umar Xasan ayaa lumisay kursigeedii markii ay heshay 13 cod waxaana kursigaas ku guuleystay Naciima Xasan Xaaji oo heshay 30 cod deeqa Xasan Xuseen ayaa iyadana mar kale dib loo doortay aqalka sare halka labadii kursi ee kalena ay ku kala guuleysteen Axmed Maxamed Saciid iyo Axmed Maxamed Ibrahim Awqarone aan iraahday abaan qarone xubnihii shay la doortay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaaji Cabdullaahi iyo Professor Ismaaciil Samadar wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dubbe iyo ugu dambeyn ليلى إسماعيل iyo Bilaal Idris Cabdullaahi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Khadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada 12 kursi ee aqalka sare ee Somaliland taasoo ku qabsoontay muddo 2 maalmood ah doorashadan ayaa in muddo ah waxaa ka taagnaa ismariwaa u dhaxeeya labada garab oo ay kala hogaaminayaan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guleed iyadoo horaantii bishan ay ugu dambeyn ka heshiiyeen arrintaasi markale senator loo doortay xilli uu si adkaanayo loolanka mucaaradka iyo filla Soomaaliya hubkii ugu badnaa oo Muqdisho soo galay mucaaradku abaabul cusub bilaabay xilli wali uu taagan yahay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhacdooyin lama filaan ah oo maanta lagu arkay hoolka doorashada gobolada waqooyi xilli argeyda codeynaysa ay qaadeen tilaabo la yaab noqotay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana 4 taariikhdu ay ku beegan tahay 29 Sebtembar 2021 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya asxaabtaada kuna share garanaya baraha bulshada oo ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad nagu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan madaxweynaha madaxweynaadkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliye hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nidsa Fahd Yaasiin Xaaji Daahir haddana ah la taliyaha amniga madaxweynaha ayaa si weyn uga carooday tilaabo kale uu qaaday gudoomiyaha waqtigiisu uu dhamaaday ee golaha shacabka kadib markii uu xagaldaaciyay qorshe labadan mas'uul ay damacsanaayeen gudoomiye Mursal ayaa dhawaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu u diray warqad uu ku cadeynayo in la soo afjaray howlihii baarlamaanka tobnaad taasi oo soo afjartay qorshe weyn oo madaxweyne Farmaajo saaxiibadiisu ay damacsanaayeen warqadda loo diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu gudoomiye Mursal ku sheegay in baarlamaanka tobnaad shaqadiisa ay dhamaatay sidaas darteedna uu gudoonka goluhu go'aansaday in xukuumadda dib loogu soo celiyo hindisayaasha sharciga ah ee hor yaalla baarlamaanka si loogu gudbiyo baarlamaanka 11aad imaan doona maadaama ay xukuumadda federaalka ahi ku jirto xilliga xilgaarsiinta golaha shacabkuna hadda doorasho u baxayo waxaan halkan kuugu soo celinayaa hindisiya sharciyeed iyo hindisiyaasha kale ee hor yaalla baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya si loogu wareejiyo baarlamaanka 11aad ayuu ku yiri warqadiisa gudoomiye Mursal ila xogogaal ayaa sheegay in Farmaajo iyo Fahd Yaasiin ay si weyn kaga caroodeen tilaabada uu qaaday
gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ee ka turjumaysa inaysan jiri doonin baarlamaan dambe oo si sharci darro ah ugu adeega madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhammaaday. farmaajo Fahad Yaasiin ayaa waday xeelad kale oo dib loogu soo noolaynayo awoodda madaxweynaha, sidoo kalena hoos loogu dhigi rabay dadaalada ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble ee doorashooyinka iyo raadinta cadaaladda kiiska Igraan Tahliil. cadaadis xooggan oo mursal uga yimid wakiilada Soomaaliya ee Midowga Afrika, qaramada midoobay, Midowga Yurub iyo saamilayda siyaasadda Soomaaliya ayaa qasab ka dhigay inuu soo saaro warqadan uu u diray ra'iisul wasaare Rooble. xogta la helay ayaa sheegaysa kulan xalay dhaxmaray Fahad Yaasiin iyo mursal inuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan, kadib markii mursal walaac ka muujiyay haddii uu ka hor yimaado ra'iisul wasaaraha inuu waayo kursigiisa xildhibaannimo maadaama uu doorashooyinka mas'uul ka yahay ra'iisul wasaare Rooble. kulanka ayaa la sheegay in Fahad uu doonayay in maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu kaga dhaadhiciyo ka qaybgalka loolan siyaasadeed oo ay ku wajahayaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble iyo xukuumaddiisa oo hadda loolan xooggan uu kala dhaxeeyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. bartamihii bishan Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheeyay in xubno ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee waqtigoodu u dhammaaday ay qaab fowda ah xilka uga qaadaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble, isla markaasina ay ku dhawaaqaan in baarlamaanku dib uu soo celiyay muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. hase yeeshee guddoonka ayaa arrintaasi ka hortegay. gudoomiye mursal wuxuu qayb ka ahaa koox isku xil saartay inay dhexdhexaadiyaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Rooble, waxaana waawaantii ay wadeen isaga iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor garwadeenkan ay ka ahaayeen ka soo bixi waayay wax natiijo ah dhinaca madaxweyne farmaajo ayaana la sheegay inay ka burburtay. xaalka ayaa hadda u muuqda mid mursal uu ka baxay xulufadii filla Soomaaliya, gaar ahaan garabka madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo geed fadhi u ah arrimaha siyaasadda madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhammaaday. qaybihii hore daawanaysaan doorashada xubnaha kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabatay xerada teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho, waxaana senataro cusub lagu soo doortay doorashada halkaasi ka qabsoontay. kursiga koobaad ayaa waxaa ku soo baxay gudoomiyihii hore aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdullaahi, kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay awalba maqaarsaar ku ahaa